mudan madaxweyne awaamirtan siisay ay ahayd in maamul wanaag iyo maartay la muujiyo isla xisaabtan iyo daahfurnaan si ilaha dhaqaalaha maartay loo kordhiyo adeeg aan shacabka aan u haynana uu u noqdo adeeg daahfuran oo la arki karo hirgelinta nidaamka iyo xaqiijinta hanaanka anshuur bixinta qaybta saddexaad mudan madaxweyne aan diiradda saarnay waxay tahay dakhli abuur in aan ballaarino ilaha dhaqaale iyo nidaamka maareynta maaliyadeed qaybaha inoogu muhiimsan iyo kordhinta shirkadaha iyo xaqiijinta hanaanka anshuur bixinta qaybta afraad oo ayadana ka mid ah tiirisha ama principally qodobada ugu muhiimsan ee aan ku howlgalaynay ayaa ah adeeg bulsho garoonka maadaama uu yahay yani albaabka laga soo galayay ee dawladda uu yahay image-kii maartay muraayadii saad noo sheegtay hay-adaha dawliga ah ay iska dhex arkayaan oo dhammaantood adeega aan bixino aas-aas u ahayd annagu marka waxaan diiradda saarnay adeega bulsho ee garoonka maadaama garoonka sayid maxamed cabdulle uu yahay garoon caalami ah ay ku tiirsan yihiin shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in adeeg bulsho oo ku dhisan dhowrista iyo qadarinta sharafta muwaadinimo ilaalinta wakhtiga iyo daryeelka rakaabka ka dhoofaya garoonka iyo weliba si dhow inaan ola shaqeyno oo aan dhegaysano dadweynaha cabashada iyo maaragtay baahiyahooda gaarka ah isla markaana aan ka jawaabno wax kastoo annaga aan qaban karno qodobka shanaad ayaa ah in abaalmarinta iyo dhiirigelinta shaqaalaha ay tahay door muhiim ah oo noo suurtageliyey in maaragtay meesha aan marayno iyo waxyaabaha maanta aan ku faanayno inoo hergelay kaalin mugle ka qaatay mudan madaxweyne qaybta tan qof kasta oo muwaadin ama qof kasta oo shaqaale dawladeed ah oo isla markaa ka shaqeeya garoonka laga saaray garoonka lagana dhigay hay-ad madax bannaan xilligaa ay maartay aan helnay degreetadii intaa wixii ka dambeeyey waxaa inoo qabsoomay kow dib u habeynta nidaamka dhismo ee maamulka garoonka mudan madaxweyne waxaa inoo qabsoomay horumarinta amniga garoonka muddada aan joognay waxaan aad ugu faani karnaa waxa dhacdo security ah oo garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan garoomada Jubbaland oo maanta maartay ama record aan xasuusana habeeraatay ma jirin taana maartay Allah weyn oo awood leh ayaan maartay iskale ma hadda ka soko ciidamada geesiyaasha ah habeen iyo maalin maartay u taagan in amniga ay sugaan xaqiijiyaan adeega garoonka in maartay sidii loogu talagalay uu u shaqeeyo ayaan ku amaanaynaa hirgelinta adeega cusub ground handling shirkadda Safari Aviation ayaa ka mid ah shirkadaha bixisa adeega garoonka shirkadaasi waxay bixisaa gaadiidka diyaaradaha gudaha maartay ka adeega ee boorsooyinka dadka qaado luggage-ka oo halka baaritaanka gaadiid loo geeyo oo dadka alaali markay baaritaanka maraanba lagala soo wareego iyo maartay shaqaale gaar ah oo ayada mushaarkooda ay bixiso ay soo kordhisay oo tiradooda 22 ay tahay iyo sidoo kale xamaaliga garoonka ee ka shaqeeya shirkadda ayaa maartay ayana sidoo kale maamusho iyo nadaafadda guud ee garoonka guud ahaan excellency maadaama systemkeena maaliyadeed uu yahay single treasury account dhammaan ilaha dakhliga ee garoonka waxaa toos u maamusho ama uu ku dhacaa accountiga wasaaradda maaliyadda annaga ka board authority ahaan wax dhaqaalaha oo gaar aan u maareyno ma ay jirto accounti gaar oo aan leenahay ma ay jirto keli ah haddii bil ay dhammaato mushaaraadka shaqaalaha iyo maartay dadka sida gaarka shaqaalaha rayidka iyo ciidanka sida gaarka shaqada kule ee bodka payroll-kooda iyo mushaaraadkoodii oo daily attendance loo fiirinayo ayaan soo process garaynaa iyo running costiga ee bodka kadib dhaqaalahaas wasaaradda maaliyadda ayaa lagu shubaa deposit slip ayay shirkaddu qaadataa annagana wasaaradda maaliyadda ayaan ka baro
kartaa 5 daqiiqo ka hormari kartaa terminalka la qoto oo si caalami ah loo dhiso wuxuu yahay idinka marka higsigiina airportka mustaqbalka hadda ka damacsantiin maxaa idin muuqanaya waxa aad idinka dhiman rabtaan hadda inaad wax ka qabataan ama maxaa hadda muuqaalkii dhanka higsigeena 2020 waxaan u aragnaa inuu yahay sanadkii dhismaha sanadkii dhamaystirka qorshaha dhismo garoonka Sayid Maxamed Cabdulle ugu horeeyo iyo dayactirka guud ahaanba garoomada Jubbaland oo dhan iyo in aan hirgelino oo dib aan maarta u hirgelino dhammaan haddii ay ahaan lahayd dayactirkoodii iyo shaqaaleyntoodaba mudan madaxweyne waxaan rabnaa 2020 higsigeena waxaa ka mid ah in garoomada Jubbaland dhammaantood aan wada hoos keenno systemka hay-adda duulista iyo maamulka garoomada Jubbaland si marka aan dhammaantood aan ugu sameyno shaqaale u gaar ah oo mushaari ah oo dawladda wasaaradda maaliyadda mushaarkooda maartay bixiso hay-adda duulista iyo maartay maamulka garoomadana accounti guud oo dhaqaalaha dakhliga garoomada dalka oo dhan maartay lagu soo wada shubo ay sameyso oo hadda taas ka argooyo la sameeyo laakiin qalab badan baad u baahan tihiin muxuu yahay qalabka idinka dhiman hadda garoonka ama ha noqoto hadda waxaad ii sheegteen 2 raadiyeyaal oo noocyo kala duwan iyo mashiinadii intaas muxuu qalab ahaan maxaa idinka dhiman oo isleedihiin hadda qalabka aan u baahannahay dhanka horta screeningka security-ka mashiinaha hadda aan sheegnay aan haysano naguma filna maadaama mashiinaha hadda aan haysano ayna nagu filneen awood ahaan iyo populationka aan ku xisaabtamayno aan qorsheynayno ayna isku filneen inaan mashiino dheeri aan helno si aan u xaqiijino dadka maartay diyaaradaha raacayo iyo saacad kastaba in amnigii uu aad u horumarsan yahay waayahay aan u galo mid kale oo siyaasadda shaqadii ku saabsanayd flightka Doble iyo Kismaayo imsay diyaaraddu qaadatay hawada ku jirtaa daqiiqadaha qaadatay imsa diyaaradu say u kala weyn yihiin bay maartay hawada jaritaankeeda ay ku kala dheereen diyaaradda maartay Fokker 50 Embraer 30 daqiiqo ay u duushaa Kismaayo iyo Doble waxay martaa hadda maadaama la joojiyay adeegii duulimaadyada ee Kismaayo iyo Doble oo tooska ahaa muddada 4 bilood aan soo dhaafnay caqabadaha ugu waaweyn ee saameeyay waxaa ka mid ah in diyaaraduhu ay Muqdisho maraan Muqdisho marka maritaankeeda waa saacad iyo bar oo Muqdisho iyo Kismaayo loo soconayo iyo waxay noqonaysaa 2 saacadood oo Muqdisho iyo Doble ah 4 saacadood qiyaastii taqriiban 4 saacadood ay ku dhowdahay waa 2 safar Kismaayo Doble qofkii wuxuu ku raaci jiray $80 250 waa isku celcelis waa 2 safar
infact waan idinka mahadcelinayaa shaqadiinan waan qalabkana waan idinka sugaynaa waan rajaynayaa sanadka 2020 in arrinta garoomada isku xidhnaanshoodan wax iska bedeli doonaan garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shaqadiisa wax ka qabsoomi doonaan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto arrintan hadda Dhoble oo kala tusaale aan soo qaadanay waxaa la mid ah ruudkii Nairobi waxaa hadda maareeyo ka shaqaynayay markay soo mareen qoladii baaraysa garoomada iyo qiimeynta ku sameynaysa inuu standardka garoonkaani uu yahay garoon caalami ah haddana aan ka hadlayno waxaa nasiib darro ah inay tahay siyaasad aan danta shacabka iyo dalka iyo dadka midna la danaynaynin oo maanta qofka muwaadinka Soomaaliga ah in ka yar half an hour nus saac ka yar u soconaya Dhoble oo gurigiisa uu yahay ama maamada xanuunsanaysa expire inta uu kala soconaysay inay 4 saacadood iyo bar rooda soo qaadato oo laga yaabo mararka qaar ku intay diyaaradii ka tagto inay degto oo magaalada Xamar oo marka ay dan ka lahayn qofkii uu gudbo waan ka xumahay taasna mas'uuliyadeeda waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay su'aalahaas weydiinayeen mas'uuliyiin ayna u baahan tahay ciqaab wadareed u baahan in jawaab loo helo waa ciqaab wadareed bulshada inta leeg dhibaatada inta leeg loo geysanayay mas'uuliyad sidee ah qofku ku sheeganaya ciqaab wadareedka inta leeg ee saacadaha inta leeg loo qaadanayay waa wax mustaqbalka laga xisaabtami doono taariikhdana geli doonta waxaan rabaa inaad ka diyaarisaan report qoraal ah oo ku saabsan ruudka Nairobi iyo wareegga qofku saacadaha uu ku qaato iyo kan Dhoble iyo meel kasta oo ruudkeeda la wareejiyay waxaan aanan garanaynin waxa kala xidhay Soomaaliya oo dhan inay magaalo walba magaalo u furan tahay meel walbana international flight ay leedahay oo toos ay u tagto iyo caqabada siyaasadda waxa la isku hayaa haday siyaasad tahay siyaasaddu haddii lagu dhaqmo waayo sharcigii oo dastuur lagu kala bixi waayay haddii siyaasaddii dawladdu mas'uuliyaddii ay qaadan weydo laga wada hadli waayay inay noqoto argoosiga ay dawladda kari kartaay maanta jirtaay ciqaab wadareed inay bulsho u geysato oo nooca u dhaqanto taa macnaheedu inuu yahay inaynan ahayn dawlad matali karta shacabka gabtayna mas'uuliyadeedii aan u qalminna inay ummad hogaamisay waa wax aad u adag marka waxaan idinka rabaa cadaymahaasoo dhan inaad soo qortaan cidday khusaysa lala wadaago baarlamaanka federaalka u haya arrintiisaas idinkuna shaqadiina aad sii laalaabtaan aad baad u mahadsan